ay maalmihii u dambeeyay dadka ku nool magaalada Tugub oo ah goob roobab daadad wata xagga kale u rogeen kuna dileen 3 carruur ah qaar kale oo badanina ay ku dhaawacmeen ayna sugayaan dadkaasi bal cid gurmad nooc kasta ha ahaadee soo gaarsiisa marka laga reebo maamulka heer gobol iyo mid degmo ee Caynaba oo iyagu kaalin muhiim ah ka qaatay gargaaridda wixii karaankooda ah ee gaarsiinta dadkaasi ayaa waxaa xalay fiidkii soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adda ka hortagga masiibooyinka Somaliland ee Neerad kuwaasi oo sidoo indhahooda ugu arki lahaayeen wixii meesha ka dhacay isla markaana lugahooda ku tegay markii ay ka soo laabteen shir jaraa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka Saraar kaasi oo ay kaga hadleen sidii ay wax u dhaceen waxyaabihii ay soo arkeen sida wax loogu qaban karo dadkaasi iyo baaq ay u direen xukuumadda hay'adaha caalamiga iyo qurbo-joogga ka soo jeeda gobolkan Saraar kulanka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar ugu horeeya balasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan علي maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Shaadh oo ka tirsan golaha guurtida Somaliland iyo agaasimaha waaxda cilmi baarista hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah ee Neerad Muulid Muuse Maxamuud kulanka shirkan ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan oo isagu mas'uuliyiintii shirkan ka soo qayb galay uga xog warramay sida ay dadkani ugu baahan yihiin gurmad degdeg ah agaasimaha waaxda cilmi baarista hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah ee Neerad Muulid Muuse Maxamuud ayaa isagu ugu horeynba waxa uu ku tiraabay inay dadkani u baahan yihiin weel iyo weliba raashin kaasi oo laga codsanayo xukuumadda Somaliland hay'adaha caalamiga iyo qurbo-joogga u dhashay gobolkanba inay dadkani si degdeg ugu soo gurmadaan wuxuu ahaa waxaan la qiyaasi karin oo intaan horta kolley anigu noolaa aanan weligay dibina noo arkayna mooyaane tuuladaasi waxaa ku dhacday masiibo dhammaystiran oo habeen madow gudaysa oo oodaheeda wadata waxaan xasuustay sidii heestii Cabdiqays qaadi jiray ninkii dooxa reer furaydii magaranaysa ayaan xasuustay ayagoo hurdo oo iska cawaysimay oo nabad ku seexday baa waxa soo galay dad 10 mitir geedaha gobka korkooda maray qof walba qiyaastaasi wixii meesha ka dhacay waa qiyaasi karaya dad tuulo muxuu ahaa dix jiifo oo aan muxuu ahaa ka gaashaamanin oo taas ku dhacday aan soo aragnay waxay dad maamulka gobolka soo direen dhab uu ahaa wax dhab ah buu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Shaadh oo isaguna ka mid ahaa mas'uuliyiinta shirkan jaraa'id qabatay ayaa mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo waa barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali iyo maayirka degmada Caynaba ku sifeeyay in la siiyo bilo sharaf maadaama ay gurmadkoodii ugu horeeyay kaga qayb qaateen sidii ay dadka roobku waxyeeleeyeen wax u gaarsiin lahaayeen waxaan leeyahay dawladdu waa inay ogaataa dadka u shaqeynaya wuxuu yahay midna xilkiisa ka soo baxay midna kuma soo baxay kuwa xilkooda ka soo baxay waxaan jecelahay guddida abaaruhu inay shahaado sharaf ay siiso nimanka waayo xil aynu lahayn bay inaka iyo dawladdu balahay ama islaamku balaha ayay ku difaacay marka waxaan leeyahay maamulka halkaa jooga in shahaado sharaf la siiyo ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali kaasi oo afarta ku fiiqay inay dadkani xukuumadooda ka filayaan inay gurmad la soo gaadho runtii dadweynaha reer Somaliland iyo runtii wixii qurbo-joogga qurbaha kaga maqan iyo wixii gudaha joogaba reportkaanu siinayna waa camera ka baxaya runtii camera ka baxaya waxna way arkeen oo way maqleen way daawadeen sawirradii waxna runtii waa naga ku celinayna oo hadday maqal doonaan